زبن أي بدأتي فتنة يدقالة عالم كمال والبا أفرتجيس ميا تاريخه أي دب إنه عنا سؤال هراء يا هذا الهراء النبي صلى الله عليه وسلم ميوس النبي إنه شاء صلى الله عليه وسلم وإنه جس بشاري دولان كل جود دون هندية ميوس النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاء دجال كدحمر دون كوا الله ذا عابده يا مدى مسلمين محاسة تأثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه جو بشاري كوا كدوا لهندية إن الله جل وعلا النار كديرين دونه sidoo kalena ilaahay jalla wa ala ay heli doonaan guushiisa ilaahayna uu gargaarkiisa iyo nasrigiisa u siin doono وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة مع عيسى بن مريم صححه الألباني في صحيح النسائي ثوبان وحولي الله كرال النقضي النبي أيها وحيد صلى الله عليه وسلم لبق عيدا أبودود وأمد إذا كمد إلهي أيها كديرين دون النار guurkiisa gargaarkiisana siin doona waa ciidanka koobaad iyo awoodda koobaad waxa weeye kuwa ku duusha hindida sidoo kalena waa mid labaadna waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay kuwa ciidamada la socda nabiyullaahi ciisa ibn maryam xilliga ay zamaanka uu soo baxo miyaan joognaa zamankii nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu sii bishaareeyay maxay tahay sirta ku jirta qoomka ku duula hindida in ilaahay jalla wa ala uu naar ka dheereen doon muuqaalkan ay wax badan kaga ogaan doonta aadan ku ogeyn hindida iyo duulaanka iyo xilliga ay muslimiinta maartay wadankaas u soo galay fadlan hadaan nagu cusubta inta muuqaalka guda gelin noo subscribe gare noo like gare asxaabtaadana la wadaag barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr hadaad hore noo joogtayna like share iyo comment ma ogtahay in hindiya inaan ahaan jirin goob ay ku badan tahay gaalnimada iyo shirku runtii hindiya waxa islaamku uu soo galay qarniyadii koobaad ee islaamka waxaana hindiya furtay suldaankii weynaa iyo qaa'idkii weynaa ee magaciisa la oran jiray maxamuud al-ghaznawi kadib markii uu furtay waxay aasaasteen imbaaraadoriyad iyo boqortooyo aad u weyn oo muslimiin ah aadna u awood kana talinaysay hindida zaman iyo waqti aad u fara badan sidoo kale waxaa jiray saldanooyin muslimiin oo iyaguna ka talin jiray hindiya oo aad u fara badan sida saldanadii Delhi oo uu aasaasay ninkii la oran jiray qutbuddin aybak oo iyaduna zaman hore ay inta soo isticmaalku imaanin sidoo kale waxa kamid ah saldanooyinkii awoodda badnaa ee muslimiinta ee hindiya soo maray ninkii dhisay Taj Mahal meesha hadda loo xidal xiistaagay ku faanaanba ninkii la oran jiray suldaankii weynaa Maysa Shah Jahan oo isaguna boqor muslim ahaa suldaan muslimana ahaa hindiya waxay ahayd goob cibaado goob tawxiid oo afarta gees ee masaajida iyo adinku isgaarayo oo ilaahay jalla wa ala dadka intooda badan in yar mooyaan inta badan ay muslimiinta wax muslim ah iyo wax muslim ku hoos nool bay ahay ilaa uu soo galay isticmaalkii Ingiriiska ee Britain adduunka maarta soo guumeystay wadamo badan oo kamid mar alaali markuu isticmaalku yimid ayuu kala qaybiyay adduunyo iyo lacag iyo dhaqaale ku kala qaybiyay kadibna waxa go'ay muslimiinta qaybtii ugu xooga badnaa qabaa'ilkii ugu xooga badnaa hindida ayaa ka go'ay qaybta koonfureed kadibna waxa aas-aasmay oo abuurmay qabiilo fara badan oo muslimiina lana bagaxay magaca Pakistan waxaana qasab noqotay wixii inta ka dambeeyay inay hurto dhimisha dagaalka cadawga ee ugu dhaxaysta hunuuda iyo muslimiintii qabaa'ilkii muslimiinta ee la magacaabay Pakistan ilaa maalinka ilaa ay hadda kadib ilaahay jalla wa ala tabaaraka wa taala waxa uu qadaray in ilaahay jalla wa ala Pakistan ay wadan noqoto hindiyana ay wadan noqoto oo awoodahooduna ilaahay jalla wa ala awoodo weyn uu ka dhigay Kashmir waxay dhahan culimadu iyo taariikhiyaniinta iyo dadka hadda maartay falanqeeya siyaasadda caalamka waxay dhahan waa dhaawacii dhiigga qabanay macnaha dhiiggeeda ayaa aad u socda runtii Kashmir waxa ku nool muslimiin fara badan oo aad u fara badan laakiin waa taxta saydarada hindi oo waxa ay maartay hoos tagtaas maamul ahaan oo waxa maamula inta wada badan hindi ayaa maamush kumanaan kun oo abriya oo waxba aan galabsan ayaa lagu laayay kumanaan kun ayaa lagu qafaashay kumanaan kun ayaa lagu gabood falay waxa ayna noqotay meel maartay xataa muslimiinta ay aadaanka kor u qaadi waayaan salaadaha iyo maartay iqaamadana ayman codka kor u qaadi karin inay hoos maartay si sirri ah masaajidka hoostiisa ay ugu tukadaan mooyaan ilaahay tabaaraka wa taala saas ayaa ilaahay tabaaraka xaaladu sidaa tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoogu bishaareynaya inoo sheegaya in ilaahay jalla wa ala u gargaari doono naartiisana uu ka ilaalin doono laba awood ciidanka koobaad wuxuu ku duuli doonaa taqzul hindi bay ku duuli doonaan markaas ilaahay jalla wa ala u gargaari doona guushana siin doona qoomka labaadna ciidanka awoodda kalena waa Ciisa ibn Maryam xilligiisa ayay maartay la jiraan oo ciidankiisa ayay noqonayaan hadaba
waxaanu joognaa zamankii nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama maalmahan dagaalka Hindiya iyo Pakistan uu bilowday horey u sii jiray laakiin uu sii xoogaystay maxay tahay tamaniga inagu aan tamayna marka aynu fiirino xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa xadiis kale inoo sheegay Abu Hurayra ayaa wariyay radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nabiga ayaa wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa ummad soo saaraya ummadana waxay ku duuli doontaa Hindiya markaas ay waxay ka soo qaadan doonaan ghanaa'im aad u fara badan iyo ajar aad u fara badan iyagoo soo noqday markaas ay soo noqon doonaan iyagoo ubaada oo fuqaha talow nabiga sallallahu alayhi wasallam labada bishaara oo noo sheegay ciidamada mujaahidiinta Kashmir hadda ka dagaalama ee Hinduuda la dagaalamaba ayagu ay u bixiyeen waa argagixiso mise ciidamada Pakistaaniinta ee Ilaahay jalla wa ala islaamka qiyamkiisa iyo sharafkiisa ilaaliyaba waqtiga iyo zamanka ayaa inoo sheegi doona laakiin waxa idin maartay idin la socodsiinaya idin ku soo gudbinaya muuqaalkan in Ilaahay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam inoogu bishaareeyay in Hindiya la furan doono aakhir zamaanka oo waliba muslimiinta ay furan doonaan muslimiinta iyo kuwa loo caabudana oo dagaal xun dhex mari doona halkaan ay guush ku raaci doonto muslimiinta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay jalla wa ala tabaaraka wa taala muslimiinta meel way joogan qulubtooda ilaahay isku dumo gargaarka iyo nasriga ilaahayna uu siiyo ilaahayna uu ka yeelo kuwa kalimatu la ilaaha illa allah kor u qaada nabiga sallallahu alayhi wasallam ballankiisa iyo qowlkiisana oofiya kullu ballanka nabiga uu dhici doona laakiin inagu mar walba waa inaan ahaana dad ilaahay jalla wa ala waaqica iyo taariikhda islaamka la socda oo in maartay gaale iyo maartay iyo hergalbeed aysan wax noo sheegin taariikhda islaamka iyo taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xadiista nabiga aan dib u raacna barakallahu fiikum jazakumullahu khayr inta muuqaalkan intaas ku yahay inta muuqaalka ku kulmi doona walaalkii Maxamed Amiin youtube waa channelka Istiqaama Media fadlan haddaan noo cusub tahay mar labaad noo subscribe garee noo like garee noo share garee asxaabtaada la wadaag haddaa hore noo joogtaan like share comment intaan muuqaalka ku doona walaalkii Maxamed Amiin assalaamu calaykum wa rahmatullah اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك